السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت الرسول مالك بين السلام ملك جوجتان وودقي لحد جركا ودقرنيسان وصوتك بدنا ودجيني سكرتا iyo dhikarka iyo cholesterolka marka dad badan baa runtii soo waca oo dhaha niyo kaniinka waxaan ka baqaynaa in uma taqaana dib noo geysto wuxuu leeyahay side effect markaan dhikaran qabaa marna waa qaataa marna waa ka tagaa dadkaas aan rabaa insha Allah taala inaan clipkan u duubo horta marka koowaad waxa dadka dila waxa waaye cudurrada badan keena waa dhikarka way haduu kugu dhacdo asaga ku horeey waay haduu asaga ku horeey sideed oo kale marka kaniinka wax ma dilo kaniinka waa dad ma taqaana professor oo wax barteen ayaa soo baareen marka kaniinka mar hadaa dhikar lagu qoro walaalkay walaashii ama sokor lagu qoro weliga ha ka tagin hatta hadaa ku kacsanayn hatta hadaa dhikarka ku kacsanayn waa ina kaniinkaada qaat hadda aan Afrika markaan aaday runtii dhikarka dhanba waxaad moodaa inuu iga baxayba sababtoo meeshaas waa qorax dhiigaada ma taqaana si fiican u soconayo laakiin hal mar kama tagin marka dad badan oo waxa jira kaniinka saas ugu tagay marka ani waxaan ku leeyahay dadka dhahaya kaniinka marna waa ka tagaa marna waa ma taqaana waa qaataa dhahaya waa ku digaya ani waxaan ka shalayaa 2009 markii dhikarka liigu sheegay nin xoog badan baan ahaa waxa lii qoray kaniin hal xabo oo ramapril 2.5 mg laakiin alxamdulillah madax xanuunka iga dagay iyo taqaana xanuunka iga dagay waa raystay laakiin waa yara miligram ka yara marka waa iska socday alxamdulillah ma baari jirin ka mashiin ma haysanin waxa ma haysanin laakiin waan ma taqaana xoogayda iyo caafimaadkeydaan aaminay moogta ala kullu walaala sharafta markii dam waxay noqotay baalkii inuu aad markastuu kacay aad ma garanaysid moogta baalka ma garanaysid hadaba mashiin haysanin waxaan ku digay hatta dad dhikar qabto mashiin gado marka taas ana iga hoostay marka waxaan ka shalaayay marka haddaad ogaan lahayd dhakhtarka saada aan u qayl oo kordad u qayl hadaan arki lahaa mashiintii tan soo gataan iska warqabi lahaa moogta 11 sano saas uu kacay 2020 baad ogtiyay waa idin sheegay waa tii leedahay marka deekiliyahaadi waaba dhacayaan mar dhow marka dhikarka waa aabaha cudurrada dhankeena waa iska ogaada markii dambana waxaaba ku soo xigtay sokor mar hadaa dhikar lagu sheega adoo sokor waa la dilis waa kugu soo socotaa haddaadan ma taqaana aadan kicin oo hurdada ka kicin sidoo kale inta iska saaxad tiraadi in adeero deegaanay alxamdulillah caafimaad qabaa waxaad ogaataa baalkani waa baal silent killer waa silent killer hadda waxa jira wiil runtii ilaahay subxaanahu wa badbaadiye saas oo kale kaniinka ka tagay oo dadkeena buufisa kaniinka ka qaaday war waxa dadka dil waa cudurka kaniinka maaha sokor iyo dhiikaraha ku ciyaarin weliga waxyaalaha kale waa laga yaabaa cholesterolka iyo waxyaalaha kale cudurrada kale ma taqaana waa laga yaabaa laakiin sokor iyo dhiikar kuma ciyaari kartid kaniinkaada saas suuya waa inaad u qaatid marka waxaa kaloo kuu sheegay walaalkay walaashay keliyaha waxa waaye waxyaalo badan aan daawo u ahayn iska ilaali dad barkiisa ma taqaana wax kasta iska qaadanayaan marka cuntadaada waa ina aad u ilaaliso khaasatan ina iska ilaaliso yaanyada oo kale oo qudaarteen lagu daro oo suugada lagu daro keliyaha badan uma fiicna hadday ka maarmid iska yaray laakiin kulli ana waa iska joojiyay spinach kaba markaan aad hadallo taxadiray insha Allah taala ninka sab ilaahay subhanahu wa ta'ala saarto caafimaadkaada wax ka wanaagsan ma laha cusbada iyo saliidii sokortan halka iska dhig biyaha cab socodka badi hadda fiiraan shaqan gali lahaa laakiin shaqadaydu waxa iga daran caafimaadkeeda waa fahamtay sooma waa inaan at least hal saac lugeeyo waa inaan lugeeyo intaan shaqada galin ka hor marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala badbaadiyo Soomaaliya meel kasta joogtaanba fadhigii hurdada faraha badan hal iska joojiyo hal socdo barakallahu fiikum nabiga suuban sallallahu alayhi wasallam xadiiskii xasuuso weliga inna li rabbika alayka haqa wa inna li nafsika alayka haqa wa rabbigaada xaq buu ku leeyahay xaqiisa si cibaadada ilaahay way haye waxa ku xigto inna li nafsika alayka haqa naftaada xaq bay ku leedahay xaqeeda si dadkan qurbaha jooga waliba xaqooda isma siiyaan naftooda kama fikiraan naf kale bay ka fikiraan nafta kale in laga fikiro fiican tago ku midiiday aniga
laakiin horta naftaada hormari. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.